wasaaradda maaliyadda dalku waa mid ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranku leeyahay waa wasaaradda maamusha dhaqaalaha dalka waxaana ay ka mid ahayd wasaaradihii ugu horreeyay ee la abuuray xilligii dowladda daakhiliyada inkastoo ay ka mid tahay hay-adaha dawliga ah ee sida weyn ugu saameeyay burburkii dalka ku dhacay hadda waxa ay samaynaysaa horukac aad u ballaaran wasaaraddu waxa ay leedahay wasiir ku-xigeen wasiiru dowle iyo agaasimo guud waxaana ay ku shaqaysaa xarunteeda weyn ee ku taala degmada Shaangaani ee gobolka Banaadir 4 bilood oo ay wasaaradda hogaaminayeen wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo mas'uuliyiinta kale ee saaxiibadiisa wasaaraddu waxa ay samaysay horumar weyn oo muuqda waxyaabaha lagu amaani karo wasaaradda mas'uuliyiinteeda waxa kamid ah in mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada amniga ay bixisay wasaaraddu 6 bilood ee la soo dhaafay taasoo aan horey u dhicin nidaamka maaliyadda dalku waxa uu gaaray in dadku ay wax ka ogaadaan oo dhageysi dadweyne la mariyo waxaana sidoo kale ay mas'uuliyiinta wasaaraddu soo kordhiyeen nidaam lagu ogaanayo habka howlgudashada shaqaalaha dawladda qaybtan waa waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda dawladda Soomaaliya waxa xilligan ka socda shaqada maalinlaha agaasimaha qaybta masariiraad ayaa u sharaxaya shaqaalaha qorshe la xiriira hawsha ay waaxdu u hayso wasaaradda qaybtanina waa waaxda canshuuraha biriga waxaana kulan ku leh agaasinka waaxda iyo saraakiisha hoggaanka canshuuraha ciidanka booliska waxaana laga hadlayaa dardargelinta hawsha canshuuraha birigu waxay kamid tahay waa wasaaradda maaliyadda waa dakhliga waa inland revenue ee la yidhahdaa gaar ahaan Soomaaliya waxa lagu dhahaa canshuuraha biriga waxay ugu fadhidaa qaranka Soomaaliyeed muhiimad aad u ballaaran dakhliga ka yimaada canshuuraha biriga ka imaan jiray balga rajeynayo 70% dhaqaalaha dalka ay lafdhabar u tahay 30 in furdooyinka airportka dekada iyo kastamada laakiin hadda waa ogtahay dalku sidoo yahay marka sidoo dalku yahay ayaan hadda soo eegayaan u shaqeynaa waxay qabanaa canshuuraha dalkan waxa ku qoran waa account number lacagta ay qabtaa canshuur birigu ma jirto cash lagu qabta gacanta waxa lagu qabtaa account bangiga dhex ka furan marka waxaan rabnaa inaan halkaan ka muujino lacagta shacabka Soomaaliyeed dhiibaan waxay ku dhacdaa bangiga waxaana ku rito qofka muwaadinka oo ganacsada ayaa ku rido canshuurta ku waajibta iyo asiga bangiga ku rido si halkaas uga baxdo madow iyo waxaan la qaaday gacanta lu qaadantay aadayaan su'aalaha saysanay u imaan si cad ayaa shacabka waxa loo qabtay loogu shubaa bangiga dhex wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda maaliyaddu waxa ay xoogga saareen muddadii koobneed ay joogeen xafiiska in aad loola dagaalamo musuqmaasuqa oo Soomaaliya aad ula degay taas oo ay garab uga helayaan madaxda qaranka waxaana ay taasi keentay in airportka iyo dekada weyn ee magaalada Muqdisho uu ka soo xaroodo dakhli ka badan intii hore uga soo xaroon jirtay wasaaraddu waxa ay ka kooban tahay 8 waaxood halkani waa xafiiska agaasinka maamulka lacagta agaasimaha waaxda ayaan la hadalnay ka kooban tahay 8 waaxood oo waaxda miisaaniyadda oo ku shaqo leh budgetka dalka inay dejiso ilaaliso kormeerto shaqooyinkooda fuliso oo waaxda miisaaniyadda oo dalka oo dhan wasaaradda ka shaqeysa waxa ku xigta waaxda furdooyinka oo qabata dakhliga iyo howlaha import exporting waxyaabaha dalka soo gala iyo waxyaabo ka baxa waaxda samaamusha waaxda canshuuraha biriga oo loo yaqaan inland revenue ka shaqeyso oo midna canshuuraha biriga shaqadeedu tahay waaxda soo jirta waxa ku xoga procurement-ga oo wax iibsiga dawladda ku shaqale matala marka dalka wax la iibsanayo nooc kasta ha noqdo oo dawladda wax loo iibinayo habka wax loogu iibiyo ku shaqaleeda inay mudraad bixiso oo macnaha markaas ay raadiso kala saarto oo cidda markaas ku haboon inay ku guulaysto kontraadaas sharciyeyso shaqada tahay wasaaradda kale oo shaqeysa wuxuu shaqeysaa dalka oo dhan yani hay'adaha dhan dawladda waxaa jirta wax kale oo leedahay kormeerka iyo baarista oo ayaduna internal auditor oo kormeerta gudaha wasaaradda bulshadu badanaa kuma baraarugsana hawlaha ay u xil saaran tahay wasaaradda maaliyadda dalku waxaase noo sharaxaya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Ibraahim Qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda runtii waa wadnaha dalka ma aha wasaarad caadi ah waa wasaarad
isku haysaa farsamo iyo aqoon ayay u baahan tahay aynu wax ku wadi karta wasaaraddu laba baal bay ku shaqaysaa baal waxa weeye in ay dakhli ama canshuur waddanka inay ka aruuriso oo wixii waddanka uu ku socon lahaa oo dhan ayaa laga doonaya ugu horeyso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida baan iraad waddan aan ciidan lahayn waddan jiri kara ma marka ciidanna ma noolaan karo haduusan haysanin dhaqaalihii wixii wax lagu wadi lahaa inta kaliya tusaale kaaga noqon karta inta kale waxa weeye shaqaale iyo horumarin dalka la sameeyo intaba waxa weeye wasaaraddu dhinacaas waxay tahay wasaaradda kaliya sharcigu uu ogolaanayo ayna tahay in waddanka ay ku ururiso canshuuraha nooc kasta ay yihiin dakhligaas ay ururisaa dhinaca kale haddana waxay qaybisaa kharashka dowladda ku baxayo nooc walba uu yahay waxayna ku shaqaysaa hab u samaysan oo dadku badanaa u yaqaaniin miisaaniyaddu waa dakhli iyo kharash marka dhinacna waa inay dakhliga ka keentaa dhinaca kalena kharashka waddanka ku baxayo nooc walba uu yahay inay gacanta ku hayso bixiso marka waxa weeye wasaarad laba dhinac laba baal meelna waxa weeye lacag bay ka ururisaa dhinaca kalena waa ka bixisaa marka culayskaas ayaa saaran oo ma aha wasaarad caadi haddaba daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijka waxqabadka dawladda ee warbaahinta qaranka waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka mudane cabdiraxmaan ducaale bayle aan dib idinkugu celiyo daadihiyaha barnaamijka cabdifataax daahir jeyte